Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhalinyaro ku soo dhawaada channelkeena. Maanta waxaan ka hadli doonaa su'aalo ay dad badan isweydiiyaan oo ah sidee ayaan ku baran karaa graphic design-ka. Haddii aad tahay qof bilow ah ama aad rabto inaad xirfad ka dhigato graphic design-ka, video adiga way kugu socdaan. Video si fiican u daawo. Sababtoo ah waxaan ku siin doonaa talooyin cadcad oo ku anfacayo oo maantana ku bilaabi karto. Video waxa uu ka kooban yahay qaybo badan, waxa uu ka kooban yahay 6 qaybood. Qaybta ugu dambaysa waxaan ka hadli doonaa xirfadani qaabka aad lacag ugu samayn karto. What? Bro, what are you talking about, man? Marka la socod wanaagsan. Haddii aan ku bilowno qaybta koowaad, waa maxay graphic design? Graphic design muxuu yahay? Graphic design waa farsamo lagu muujinayo muuqaallo qurux badan ama naqshado soo jiidasho leh oo fariimo loo gudbinayo. Tusaale ahaan, inaad samayso logo, inaad samayso posters, YouTube thumbnails, iyo inaad samayso social media poster design. Haddii aad markuu aragto social media dhexdiisa sawirro ama naqshado soo jiidasho leh, taasi ayaa waxaa la dhahaa graphic design ama naqshadeeya waxaana sameeyay qof graphic designer ah. Qaybta labaad, maxaa u baahan tahay si aad u noqoto qof graphic designer ah? Si aad u bilowdo uma baahnid alaab qaali inaad soo iibsatid. Waxaad u baahantahay kaliya inaad haysatid mobilkaada ama laptop. Haddii aad laptop heli karin, xitaa waxaad ku bilaabi kartaa mobilkaada. Waxaa jira application la isticmaalo sida Pixlab oo kale. Mid labaad, softwareska ugu caansan oo la isticmaalo waxaa ka mid ah Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, iyo Adobe InDesign. Haddii aad tahay qof bilow, waxaad ku bilaabi kartaa Canva. Qaybta saddexaad, aasaaska. Tan waa meesha ugu muhiimsan. Baro waxyaabaha soo socda sida color theory-ga ama kalarada si isku match garayaan inaad barato. Waa muhiim markaad baranayso graphic design-ka sida kalarada isku qataan inaad barato. Iyo fontiska qoraalada, fontiga kala duwan oo la isticmaalaa jira inaad kala barato. Fontiga qaab loo isticmaalay iyo mid walba meeshuu ku habboon yahay inaad barato. Ha isku day inaad mar walba hal mar barato. Maalin kasta wax yar baro, laakiin joogtee oo ku celceli. Maalin walba inaad samayso, ku celceli. Talo, YouTube ka raad cashiro graphic design ku saabsan oo ah ku qor YouTube searching tag, waxaa ku qortaa sida loo barto graphic design, barashada graphic design-ka, sida loo sameeyo posterska. Waxyaalahaas ku qor YouTube-ka. Waxay ka anfacaysaa inaad xirfadaada kordhiso oo aad barato waxyaalo cusub. Qaybta afraad, ku celceli oo practice garee. Barashada kaliya kuma filno, waa inaad samaysaa practice joogto ah. Maalin walba samee posters hore loo sameeyay ama designo hore loo sameeyay oo qof kale hore u soo sameeyay oo kale design garee oo dib u design garee posterkaas qaabku ninka qofkan u design garee oo kale u samee. Waxay ka caawinaysaa in xirfadaada kordhiso. Xasuusnow, qof walba oo pro ah mar walba beginner ahaa. Qof walba oo hadda oo professional ku ah graphic design-ka marba asagoo bilow ahaa oo meel hoos ka joogo. Marka wax kaliya waa in isku dhaafi waa practice, oo inaad practice galayso oo aad ku celceliso. Qaybta shanaad, samayso portfolio. Marka aad wax yar barato, isku day inaad samaysto portfolio. Portfolio waa meel lagu muujiyo shaqooyinkaaga. Waxaad isticmaali kartaa sida portfolio u samaysto Instagram, Facebook, Behance, TikTok. Xataa waxaad isticmaali kartaa WhatsApp status. Dadku waxay arkayaan shaqooyinkaada, kadibna shaqo ayay ku siinayaan ama way kula soo xiriirayaan si aad ugu samayso shaqada ay doonayaan. Qaybta lixaad, sidee ayaan lacag ugu samayn karaa? Oh my God! Wow! Qaybtani waa qaybta ay dadkooda sugayeen oo ah xirfadii waa baratay oo perfect ay ku noqotay. Marka sidee ayaa xirfadaada ugu samayn kartaa? Waa marka lacag xirfadaada baratay, waqti ay gelisay. Marka sidee ayaa lacag ugu samayn kartaa? How fudud ay jirto oo lacag ugu samayn karto inaad soo bandhigto shaqooyinkaada oo aad ku soo bandhigto meelaha ay iskugu imaadaan dadka sida TikTok oo kale. TikTok samaysto, halkaas soo dhigayso shaqooyinkaada. Dadka waxay arkayaan marka shaqooyinka qabatay, halkaas ay kala soo xiriirayaan. Sidoo kale waxaa jira website sida Freelancer, Upwork iyo Fiverr. Halkaas ayaa ku soo bandhigi kartaa shaqooyinkaada. Halkaasna waxaad ka helaysaa client aad u shaqeyso. Shaqooyinka localka ah oo ganacsiyadan caadiga meesha magaalooyinka joogto. Mar ganacsiyadaas aad booqanaysaa oo tagaysaa, waxaa leedahay waxaan sameynayna poster, waxaan ku sameynaa poster ganacsigaada logo u sameynaa. Marka sidaasna lacag waa ugu samayn kartaa. What? Bro, what are you talking about, man?
hasugin inaad noqoto qof perfect ah bilow xitaa haddii aad tahay qof beginner ah oo bilow ah haddii aad tahay waa bilow kartaa hasugin inaad noqoto ugu dambeyn graphic design waa xirfad qof walba oo baran kara waxa kaliya oo u baahan tahay waa dulqaad practice iyo isdhiirigelin haddii aad maanta bilowdo 3 bilood ilaa 6 bilood gudahood waxaad noqon kartaa xirfadle videogan haddii like saar share garay subscribe saar channelkan si uu muuqaalada inta ku soo gaaraan waan ku mahadsantahay daawashadaada mahadsanid